maamulka Jubbaland ay ku sugan deegaanka Barsanguni ayaa isaga baxay deegaankaas iyadoona saacado kadib al-shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Barsanguni ee gobolka Jubbada Hoose. wararka naga soo gaaraya deegaanka Barsanguni ee duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo waramaya in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo fariisimo ku lahaa deegaanka Barsanguni ay xalay isaga ruqaasadeen gudaha deegaankaasi. goobjoogayaal ayaa idaacadda Simba ee Muqdisho u sheegay in ciidamada oo watay gawaari gaashaaman ay isaga baxeen xiro military oo ay ku lahaayeen deegaanka Barsanguni ee gobolka Jubbada Hoose. xirada ay ciidamadu isaga baxeen ayaa shalay galinkii dambe waxa weerar ismidaamina ku qaaday ciidamo ka tirsan al-shabaab kuwa oo gaari walxaaq qarxa laga soo buuxshay ku dhuftay afafka hore ee saldhigga military ee ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Barsanguni ee gobolka Jubbada Hoose. ila wareedyo ayaa sheegay in ciidamada dib ay uga ruqaasadeen saldhiggaasi isla markaana ay ku sii wajahan yihiin xilliga dadka goobjoogayaasha ay arkeen ciidamadaasi magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in ciidamada sidoo kale uu jiro khasaare ka soo gaaray weerarkii ismidaaminta ay al-shabaab shalay ay ku qaadeen saldhigga military ee ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin gudaha deegaanka Barsanguni ee gobolka Jubbada Hoose. gaari warxaaq qarxa laga soo buuxiyay ayaa shalay galinkii dambe lagu weeraray xiro military waxaana la rumaysan yahay in joogta xirada marka qaraxaas laga maqlay deegaanada ku hareeraysan Barsanguni. maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ku socdaalaya duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Barsanguni ay la kulmeen weerar kaga yimaaday al-shabaab halka oo ay ciidamada Mareykanka kaga geeriyooda hal askari. sidoo kale ciidamo isugu jiro cadaan iyo Kenyaati ayaa sidoo kale isbuucii la soo dhaafay waxaa lagu weeraray duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. weli maamulka Jubbaland kama uusan hadlin isla markaana faahfaahin kama aysan bixin ciidamadan isaga soo baxay deegaanka Barsanguni ka hor weerar al-shabaab shalay ay ku qaadeen fariisimo ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Barsanguni ee gobolka Jubbada Hoose. weli dhageystayaal waxaan ku guda jirnaa wararkii la xiriiray maamulka Jubbaland. saraakiisha ciidamada Jubbaland ay ku sugan gobolka Jubbada Hoose waxa ay isku khilaafsan yihiin hanaanka loo qaybinayo hub Mareykanka uu ku wareejiyay ciidamada Jubbaland kadib markii askar Mareykan ah lagu dilay duleedka magaalada Kismaayo. saraakiisha ayaa lagu soo waramaya in muran uu ka dhex taagan yahay isla markaana ay isku haystaan hubka Mareykanka uu ku wareejiyay ciidamada Jubbaland hanaankii loo qaybin lahaa.